daawadayaal idil ahaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkeennii shalay iyo maanta aynu toddobaadkan ka sheekayn doono isqurxinta haweenkii hore iyo haatan haweenka jooga. inkastoo isqurxintu ay ka mid tahay nolosha ama shaqada maalinlaha ee haweenku maalin kasta qabtaan taasoo ayna marnaba ka caajin, haddana waxaa soo baxday in isqurxintii hore iyo isqurxinta haweenka ee maanta jira uu farqi aad u baaxad weyni u jiro. waxaana isbedeladaasi ka mid ah waxyaabaha ay haweenka maanta jira ay u isticmaalaan xaqa isqurxinta. toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu ku laafaguri doonaa isqurxinta haweenkii hore iyo haweenka maanta jira. ugu horeyn ku soo dhawaada barnaamijka. boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhati beri hore waxaa jiray inan tima hadiso baarkana u tirdo boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhati وحبدلي كوي هوري درجة سديرو والمدى حسرتو تكبر السماي نادي صدقنكي برقيقي كبيدو نادي صدقنكي برقيقي كبيدو انتي بربرتي الله ما يفرغبتا ugu horeyn aynu ka wada bogano sidee ay ahayd isqurxintii haweenkii hore. de shaqo iskuma laha makeupka de berigii hore dadku makeup ma yaqoonin imika laakiin makeupadyadii baa batay oo qofkii wejigii waa la bedelayaaba qofkiiba maaha marka dee berigii hore iyo imika dadku dee shaqo iskuma laha. berigii hore dadku waxay isku qurxin jireen waxaanan jaraalka midna huruudo kale qasilka maxaan ku dhahdayay dee burcadkoo kale oo lagu daray oo wejiga la marsaday ama dee jidhkoo kale midna waxaad ka soo qaadaa kale imika dee timahoo kale madaxa oo kale dumarka hadii jaraale waxay marsan jireen burcadkoo kale oo timaha uu bixiyaa nafaqo u yeelayaa marka imika laakiin waa saliid waa makeup waxaynaan garanayn oo dibadaha laga keenay oo inaan shaqo ku lahayn marka runtii aniga de waxa ila fiican oo ila wanaagsan oo ila qurux badan inay dumarku ku noqdaan jaraalkii hore oo dad sideenii hore dhaqankeenii hore huruuda la marsan jiray qasilka la marsan jiray de wejiga dumarkuna ismu bedeli jirin oo de lama wax maxaan ku dhaday original oo de dumarku ay marsanayaan laakiin imika de wuu isbedelaya dumarkii chemical maxaan ku dhaday bootarkan de waxaynaan garanayn oo dhan baa dee ayay marsanayaan marka jidhkii qofkii wuu isbedelaya marka maamo dee shaqo iskuma laha dee berigii hore iyo imika dee shuqul iskuma lihin. inkastoo rag iyo dumarba laga siman yahay in la isqurxiyo haddana haweenku waxay aad uga sii xag jiraan xagga ragga waana shaqada maalinlaha ah ee ay qabtaan kuna bixiyaan waqti si ay isku qurxiyaan. taashiyada waa noocaasada taashiyada casriye oo diyaar qana maqribi oo xamaam maqrib darajo koodan kama loo geliyo qalabka cadaha iyo cidiyaha lagu sifeeyo waxaan sameynaa timaha oo dhisayno badan aan iyaguna u sameyno sida hair treatment oo كلام سمينا اسمها hair street ما سمينا hair treatment ما سمينا اسمها شو أكل دهون ما نو سمينا والله سيدا مكاي حددا تريا مكاي عروسيين هي مكاي يد مناسبة حددا بيجي ولا wax waxa uu haystaan ragu ama ay aaminsan in aan dumarka chemical u marino ama wax chemical oo aan isticmaalaa ma jirto waxaana dumarku guriyahooda isku soo qurxiyaan ee cadaalad kale yimaadaan anagu kaliya habeenka ay munaasabada leeyihiin uma noqon inay saayid oo shaaniga u sameeyna marka sida makeup oo kale
steamka oo kale oo steam room yar la galo oo nukaana waanu sameynaa marka mas isticmaalo chemical oo ku jiro waxaan u isticmaalaa fruitskan oo kale aan isticmaalaa kuwana kale aan isticmaalaa hadday tahay face oo kale marka steam loo yara gelinayo qofka marka jirka oo kale loo maydhaayo isaga iyo isagoo ciida oo ciideena madoobeeda isagoo oo draya isagoo oo kala duwan hadday tahay khiyaartiisii dacartii afkaadii intii waa u isticmaalaa timaha waxaan u isticmaalaa lag baa la dhahdaa kan oo timaha u istaajiyaa markaan timaha u sameynayna oo kale ayaan isticmaalaa kalaradoo kalena waan isticmaalaa kanoo kalena waa olive oil isagana timaha markaan aan u sameynayna ayaan ku buufinaa wax creamisay marka creamisku wuxuu yeeshay aduu faa'iidooyin buu yeelay bas marka intii timi loo sameynayo ee cream la mariyo inta badan wuu ku da'aa marka tanaa ka fiicnaatay marka noocyada baan isticmaalaa eyeshadow baadida waan isticmaalaa oo way yaalaan baadida waan isticmaalaa wax kalaan isticmaalaa microski waa kuwan oo alaabtan qalabka baan ku shaqeynaa beri hore waxaa jiray inaan tima hadiso baarkana u tirado boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhati beri hore waxaa jiray inaan tima hadiso baarkana u tirado boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhate wax bedelay kuwii hore beelageesa dheero bulmada xasaartoosu ka baratamaye naadiise dhaqankii farxigii ka baydho naadiise dhaqankii farxigii ka baydho intii burburisay hablowmay barqabataa naadiise dhaqankii farxigii ka baydho naadiise dhaqankii farxigii marka laga imaado isbeddelka weyn ee ku dhacay xagga isqurxinta haweenka iyo weliba sidoo kale haweenkan dambe waxyaabaha ay u isticmaalaan quruxda haddana waxaa soo baxaysa in haweenkan dambe marka loo eego haweenkii hore iyo weliba waxyaabaha ay u isticmaalaan quruxdooda ay aad uga qurux badan yihiin xagga haweenkii hore inkastoo aanay natural ama dabiici ahayn waxyaabaha ay u isticmaalaan inay isqurxiyaan maya horta dumarka dee quruxda waa loo sameeyey in gabadhu isqurxiso waa loo baahan yahay laakiin imika dumarku way sii qurux dhaafeenoo de waa kan makeupkii iyo waxaan ku iri oo kan isku qurxinaya had iyo jeeraale makeubyadii oo dee kala nooca ayaa la ismarinaya laakiin waxaa loo baahan yahay inkastoo aniguba ku jira dee kuwa makeupka marsada marmar inkastoo anigu markay ma garanaysaa habeenka matalan barnaamij leehay oo kale waan marsada laakiin dee had iyo jeeraale ma marsado laakiin dumarku imika maalintii bay marsanayaan habeenkii bay marsanayaan markay meel tegayaan marka waa la isku badinaya marka wajigiina de wuu dumarka de wuu dilaya caafimaad ahaanna uma fiicna anigu kulley sidaan qabade oo wejigii watan waxaa la marinayaa wax chemical baa la marinayaa haddana makeupkii baa laga dabageynayaa marka dee wuu isbedelayaa jirhkii beri hore waxaa jiray inaan tima hadiso baarkana u tirado boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhati beri hore waxaa jiray inaan tima hadiso baarkana u tirado boqorkiyo dhaclaayo marbayla xidhate wax bedelay
kuwii hore beelageesa dheero bulmada xasaartoosu ka baratamaye naadiise dhaqankii farcigii ka baydho naadiise dhaqankii farcigii ka baydho intii burburisay hablowmaay barqabataa naadiise dhaqankii farcigii ka baydho naadiise dhaqankii farcigii intaas aynu daawadayaal kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii shalay iyo maanta aynu toddobaadkan ka sheekeynaynay isqurxinta haweenkii hore iyo haweenka maanta jira barnaamijka waxaa idila socodsiinaya anigoo liibaan cismaan caliya waxaa xagga kamarada iga caawiyey iyo weliba sidoo kale xagga farsamada injineer ridwaan xuseen yuusuf ridwaan bukhaari aniga iyo akhyaarta kale ee igala qayb qaadatay barnaamijkaba waxaan idinkaga teginaa salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabdhaha Soomaaliyeed guduudana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen guduudana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen gabdhaha Soomaaliyeed guduudana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen guduudana quruxda badan gudbiyo waa gacaaladeen waxayna ku gaar yihiin deegaankood uga tageen